Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wadaan salaamay dhammaan asxaabtayda xaggan aan ku bahownay barteena youtube-ka. Mar saddexaad iyo mar labaad waxaan leenahay soo dhawaada. Waxaan ka socon doonaa halkii nagu joogay maalintii nagu dambeysay markaa cashirkeennii aan soo wadnay chapterkeennii GI-ga. Ilaa waxyaabo fara badan baan soo taabanay. Waqtiga awgeed waxaan rabaa inaan si fiican usii gudo galno hore usoo dhaqaajiyo. Maanta waxaynu kasii bilaabeynaa anatomical ahaan iyo introduction iyo halkii waxyaabo fara badan soo taabanay reflex iyo waxyaabo fara badan iyo regulations iyo marka waxaan isleegi doonaa bal functional types of movement in GIT in physiological ahaan waxay inta typeska macnaha qaybaha loo kala qaybiyo say u dhex soconayaan markaa GI-ga wax dhex socodka maxaan ka wadaa macnaha inka cuntaad cuntay dabeeta dheefshiid fara badan awoodeen after some process waxaa dhacaysa in cuntadii la saaro soma markaasay u dhaafayso movementigaasaan isleegi doonaa. Two basic movement laba unbaa loo qaybiyaa mataqaanaa laba ero kooban baa loo kala qaybiyaa socdaalka markaa GI-ga ka dhex dhacaya gastrointestinal tract ka dhacaya. Mid waa propulsive midna waa mixing movement. Marka propulsive la leeyahay waa cunto ka soconaysa mataqaanaa forward hore u soconaysa horta labadaba hore u soconayaan ilaa waxay raacaysaa mataqaanaa digestive-ka waa la digest kareynayaa dabeetana absorption baa lagu sameynaya dabeetana saas ku dhaafaysaa cuntada. It means waad cunaysaa cuntadii wayna ku dhaafaysaa iyadoo waxyaabo fara badan lagu sameynayo digestion iyadoo ka horeeyo absorption iyadoo ka horeeyo metabolism wixii dhankooda horeeyada macnaha cuntadii markii si fiican loo buriyo ay jirka dhaafto ilaa xaggaas la gaarsiinaya heerkaas la gaarsiinaya propulsive-ka war waad mixing hadaba ka haduu propulsive yahay. Mixing movement wuxuu noqonayaa cuntada waxyaabaha GI-ga ku jira hadaad imika cunto kale bariis baasto iyo mataqaanaa biyo dad cunto si mix loo sameeyo lah at all time waqti sugna si loo dheefshiid lahaa ee la isku mataqaanaa dari lahaabay tan shaqeysa waan dul istaagay inuu dejin propulsive movement waxa loo yaqaan peristalsis badan magacaas ku fiican iyo ku habboon yahay badan loo yaqaan in terminology waa cunto ka soconaysa koleysaan soo sheegnay GI-ga taasoo mataqaanaa tagaysa mataqaanaa dhaafaysa macnaha caloosha dhaafaysa waxaasay ugu wacan tahay contraction baa ugu wacan socdaashaha iskama dhex soconayso dileen maaha mataqaanaa ama wax barash ku socdo maahe waxbay ku socotaa tani barasharna kuma socdo xal ku socdo laakiin waxa ku socotaa contraction bay ku socotaa. Contraction ayaa sameynayaan rings around the gut propulse anal word direct hadda waxaan soo sheegnay histology markaan soo sheegnay GI-ga waxaan ku soo aragnay mid loo jiray muscularis external oo ku tilmaamanaya inuu ku qaabilsay GI-ga oo ku dahaariyay oo u qaabilsay contraction-ka asamaska lahaan marka kuwaas ka caawinaya inay cuntadii hore u socoto ilaa ay cuntada ka baxdo anal word direct in macnaha dhagaya ka baxdo mataqaanaa saxara mareynta ay marto markaas. In problem waxa jiri ku leeyahay smooth muscle ku dhaca lagu leeyahay badana macnaha contraction ka soo khalkhalo ama xumaada waxaan jeedaa inherent weyn macnaha waxaan ka wadaa ay contraction kaas oo wax mataqaanaa qofkiisa ka dhashay caadi ahaantiisa oo badana smooth muscle-ka taalaale smooth muscle-kan soo sheegnay hadda yaraha muscularis external ku tilmaami jiray GI-ga kaas oo waxyaalo lagu leeyahay waxyaabaha sidoo kale go'aamin waxa kamid ah rhythmic basic electrical rhythm macnaha waa xaddi ay ku dhaqaaqayso cuntadu ay kaga dhaqaaqayso from somewhere to somewhere else kaga imeysa meel to meel kale tagaysa markaas waxaana go'aamin waxyaabo loo yaqaano actions baa jira ama potential waxyaabo rhythm dhaqaajinta ka qayb qaadanaya iyagoo la yiraahdo basal basic electrical rhythmic baa pair baa la soo gabay markaa way wada dejinaya hadda halkan kusoo tilmaamo peristalsis weyn oo cuntada way dhaqaaqaysaa from mouse ka imeysa ilaa ay analka tagaysa naasaa kala soconaysa muscles baa caawinaya contraction maxaa meesha ka dambaysa sameynay hoos weyn ka tan u socotaa sax way tanna waa mixing tanna mixing oo inta wasku mid macnaha halkaas ka imatay dibadna hay tagaysa dibadna macnaha soo soconaysa weyn way tanna waa mixing ama segmentation baa la yaqaan habka loo qaybinay way cunto maxaa ka cuntay bariis ka soo qaadata cadaanka taana baasta ka soo qaado kana bariis ka soo qaado macnaha cuntiisa ay tahay waa isku dhaxmilaya marka dalkaysan qayb bariisa iyo qayb baasta la keenay xagaas la keenay waa isku dhaxmilay qayb bariisa iyo qayb baasta xaga la keenay qayb bariisa iyo qayb baasta waa la isku milay wixii la isku milay dibeeto markii mid in loo kala joojiyo dibeeto waa la isku dhaxmilay xasal noqdayna cycle noqday si khaas loo dheefshiidiyo si khaas loo saaray kaas way mixing kana kasoo makaysana ayaa factories baa jira bilaaba peristalsis inuu dhaco distension haduu jiro macnaha hadii calooshaada ay wataqaanaad cunto fara badan cunto calooshay ku soo buurnaato macnaha haduu distending adoo kugu dhaco ama of stretch haduu macnaha caloosha ku soo buurnaato
buurnaanshaha macnaha ay cunta ku jirto macnaha haddaad dherigta ka dhiganta macnaha imika ay taalaa waa peristalsis ka dhacay oo cuntada in la dhaqaajiyo loo baahan yahay hadduu irritate ku dhaco epithelialkii ku dahaarnayn sheegaynay soo aragnay laabina barbi wixii aan kusoo tilmaamnay halkii aan soo tilmaamnay GI-gii markaas histologigii soo tilmaamaynay waxyaabaha hadduu irritation dhaco meesha hadduu khalkhal ku dhaco ama irritation waxyaabo dhibaya hadday yimaadaan GI-gana degdeg waa wixii loo saaraya nervous systemka sida parasympatheticuna wuxuu stimulate gareeyaa iyo sidoo kale enteric nervous systemka especially meningic plexusku nerviskana wuu stimulate gareeyaa si uu u dhaqaaqo macnaha peristalsis ay meesha u dhacdona way soobaan hormonal mechanism gastrinka cholecystokinin insulinta motilinta kuwaasoo dhanna way soobaan mataqaanaa inay bilaabaan peristalsis inuu meesha dhaco sidoo kale daraga dawooyinka sida acetylcholine like drugs dawooyinka effectiga lamid ah acetylcholine sida carbocholine iyo pilocarpine dawooyinkan kusoo aragnay autonomigana way effectigooda wuxuu yahay inay dhaqaajiyaan peristalsis soobaan dee waan garanaynaa acetylcholine-tana waxay u ahayd neurotransmitter parasympathetic marka whenever neurotransmitter kasta oo ah parasympathetic mataqaanaa isa sheeg neurotransmitter marka wuxuu sababaya effectiga inuu yeesho kale parasympathetic marka sidaa daadeed uu sababaya peristalsis factories baa inhibit gareeya kuwa initiate gareeyaan arrimaha kuwa daba xidhaan igi doona kuwa xidho waxaa kamid ah congenital absence meningic plaque congenital ahaan macnaha qofku kusoo dhasho kale isagoo absent ka yahay meningic plaque nerveskan kusoo sheegnay enteric nervous systemka ee mataqaanaa uu lahaa GI-gu absence ka ama magac kale yaqaano ku caansan yahay Hirschsprung disease baa loo yaqaanaa ama ganglionic megacolon baa loo yaqaanaa Hirschsprung baa la dhahaa macnaha disease kaasaa loo yaqaanaa magacaas ama ganglionic megacolon dawooyinka sida atropinta scopolamine cholinergic antagonist dawooyinka waxaa loo yaqaanaa muscarinic antagonist ama anticholinergic marada hadda dawooyinkan soo aragnay parasympathetic bay cagsi ku yihiin kuwii hadda waxaan soo aragnay cholinergic oo parasympathetic ahaa in soo sheegnay carbocholine iyo wixii koona laakiin waxa weeyaan waa anticholinergic weeyaan markaas daradeed ay ku cagas yihiin marka hadday cagas ku yihiin way xidhayaan marka waxay activate garanayaan sympathetic meesha ku fo sympathetic waxay inhibit garanayaan nasa garanayaan socodka iyo peristalsis iyo xaso dhanbo iyo cunto in la dheefshiidiyo uu affect garanay oo ay dawooyinkaasuna ay xidhaan in peristalsis nervous systemka sida sympathetic obviously sympatheticuna waa xidhaa uu joojiyaa hormoneska sida secretinta glucagonta GIB-ga gastric inhibitory peptide baa la dhahaa somatostatinta VAB vasoactive peptide baa la dhahaa SAB macnaha hormoneskaasoo dhanna kulli waa tababaari kartaan way wada xidhaan mataqaanaa ay inhibit gareeyaan peristalsiska macnaha inay cunto iyo dhaqaaqdo ama cunto dhex socoto GI paralytic alias baa jira paralytic macnaha paralysis baa ku dhacaya muscle-kii wuxuu noqonayaa relax buu noqonayaa it means contraction meesha ka baxay hadduu meesha contraction ka dhacana cuntada socon maysa intestinal motility-giina wuxuu noqonayaa u yaraanaya sidaa darteed waxay increase garoobaya sympathetic stimulation dabeetana damage to smooth muscle marka dhibtan waxay ka dhacday smooth muscle kaasoo dhaawacmay taasina waxay fargaroobaysaa inuu sympathetic meesha ku dalaamo sympathetic ku dalaamana cuntadii dheefshiid iyo waxa la sameynaya ma jirto it means meeshii way iska dhex joogaysaa waayo ka soconaynaa halkaa kusoo dhamaynay mataqaanaa peristalsis wixii effect garanayay wixii increase garanayay wixii decrease garanayay segmentation kan sleegana segmentation other slag no cunto isku dhex milmayso badanaa wuxuu ka dhacaa small intestine movementigu waa macnaha journey and fragment digestive material mixed quantity intestinal secret macnaha waxa weeyaan waa dhaqaaq ay isku dhex milmayaan ay isku dhex beersamayaan waxyaabihii digestive materials waxyaabaad cuntay iyagoo isugu biiriya lagu leeyahay intestinal secretion iyagoo ugu wacan tahay inay isku biiraan ama isku milmaan secretion kala duwan insaamisa ama hormones ama waxay doonaan haadaan marka hormones iyo waxyaabahaas oo kale ugu wacan isku biiraan hostration baa jira hostration waxweyn waa burburadaas uu leeyahay large intestine baa dhacdaa mataqaanaa hostration maana waxay calaamadaha laga soo ay ka dhigan tahay mataqaanaa small intestine marka hostrationka maxay noo qabanaya dabay at the same time longitudinal muscle of the colon which aggregate three longitudinal spiratory soo kale hostrationkaas waxay noo soo haysaa cuntada inay ay kulba eelkaa soo gasho macnaha beesha buuro soo gasho mid kale meesha buuro soo gasho sidaa dadeed isku milmaan markuu muscle-kii contraction sameeyo in isku milmaan labadii iska hor yimaado labada iska soo jeeda halkan buurni way ku leedahay halkan hostration macnaha boch bay ku leedahay macnaha soo buurni halkana soo buurni ka waxay sameeyaan labada buur kulba meesha cunto markay gasho isku biiraan markuu muscle contraction sameeyo soo kale waxaa jira teen iyo kale oo isagoo ah muscle go'aamiyo halka ku yaala halkaas wargeedana waxaa raasayr u dheer cadow marka teen iyo kale waxa loo yaqaan kaasuna wuxuu u qaabisay contraction macnaha ayuu ka caawiyaa those command labada contraction soo sheegnay circular and longitudinal stream muscles kaas waxay sameeyaan lagu leeyahay an stimulation both of large intestine
bulge outward bulk like hydration sax hydration kuwa soo sheegnay contractionada iyo masalka iyo maskalada dirtoon soo sheegnay waxay dhamaantood wada waxay la distance inay cuntada isku milmato madqana isku dhex mid kale ku milanto ay sameeyso hydration loo yaqaan hore soo sheegnay way halka aan kusoo dhaweynay iyadana soo kale mataqaanaa mixerki waxyaaba mixerka effect gareeya soo kan effect gareyn karaan mataqaanaa inay bristalize-ka way digaltation manigi doonaa ama iswalooyin liqitaankii propulsive food from mouth to esophagus waa cuntadii oo liqday iyadoo ka imanaysa afka tagaysa esophagus-ka hunguriga cad soo ahaan oo kale controllable iswallowy center manaa iswallinka inaad wax liqdo iskama liqaysiduni maskaxdaada controlaysa meel la yiraahdo iswallowy centerka loogu talagalay iswallowinka in wax liqitaanka oo la yiraahdo medulla macnaha waa anatomical ahaan brainki waxaas lagu bartaa marka adu inaga soo qaado inaan si wareerin meesha ku taaliyo waxa asal si galay anatomical madam la sagalay medulla waa been ka tirsan waa part of brain that responsible iswallowing process and how to swallowing the food for example ama dad saad liquids ama waxa doonaha seebad luqi karta waxa soo dhan bay iyagu mataqaanaa markaas ay ka masuul yihiin iswallowing centerka oo ku yaala medulla oo qayb ka mid ah maskaxda waxay la xidhiidha lagu leeyahay wada shaqeynta waxay la xidhiidha wada shaqeyntaasi tangiyo manaa inaad wax liqday waxa ka shaqo galaya ragga loo yaqaano carabkii tangiyigi soft palate-ki soft palate garanayna waa qayb sare ciridka baan naqaanaa lingaraha sax qaybta softiga oo macnaha qaybta jilicsan pharynx-ka hunguriga cad waxaan jeedaa qaybta isku xidha hunguriga cad iyo hunguriga cas marka pharynx-ku wuxuu noqonayaa isagoo markaas ay halkan uu ka bilaamayo oralka soo kala de pharynx-ku isagu uu kala saddex u kala baxayo qayb san ka soo bilaabto la dhanas pharynx qayb oralka la dhaho oo pharynx iyo qayb hoose hayo pharynx marka pharynx-ku wuxuu isku xidhaa mouth-ka iyo mataqaanaa esophagus-ka hunguriga cad markaas uu ka qayb qaadanaya soo kale esophagus uu ka qayb qaadanaya 22 separate muscle of iyo 22 muscle oo soo kale liqitaanka iyaguna ka masuulo carabka iyo xayawaanka kala hagaajinaha iyo waxyaabo maylahay oo muscle fara badan baa jira mataqaanaa glottoglosis oo muscle fara badan baa jira oo caawiya iyaguna soo kale liqitaanka sida xulqilay saddex stage baa jirta sida xulqido voluntary stage la dhaho voluntary adood maamulin iyo mid pharyngeal stage la dhaho pharynx mataqaanaa uu ka masuul yahay iyo mid esophagus la dhaho ka masuul yahay hunguriga cad way ka voluntary-ga aad maamulin waa buccal ama oral fees la dhaho waa xilliga mataqaanaa debnaha macnaha ama buccal waa debnihi ama mataqaanaa oral fees-ki xilligii afka feeska afka ma maamulaysa cuntadii way soconaysaa lagu leeyahay up to late or pharynx to voluntary ba iyaguna iyadoo ismaamulayn adiguna macnaha mataqaanaa voluntary habis ka tagaysa adu like egg waxyaabaha mataqaanaa uu kaga duwan yahay waxyaabaha weyn waa voluntary adiga ka xaynaya intan adiga ka xaynaya it means adiga ka xaynaya voluntary because of adiga ku xiran tahay waxan inaad u haysaa sax marka adiga ka madax banaan waa involuntary waxa adiga ka madax banaan sax marka adiga voluntary adiga ku xiranto oo adiga u sameynaya cuntadii force garanaya bush ku sameynaya lagu leeyahay ilkihii baa carabka waxa soo dhama caawinaya ilaa ay tagto oo pharynx marka pharynx kuna waxa sheegnay inuu isku xiro afka iyo hunguriga cad oo esophagus-ka markaas uu pharynx-ku saddex qayb loo kala qaybiyo soo sheegnay qayb pharynx nasal ku beegan qayb oropharynx la dhaho ku beegan mataqaanaa oralka ku beegan ama mouth ku beegan iyo qayb pharynx la dhaho ama oropharynx ama waxaan jeedaa mataqaanaa pharynx hoose marka qaybta isaga xirmaysa esophagus-ka marka qaybta la dhaho qaybta dhexe la dhaho oropharynx afka baad waxaynaysaa ilaa cuntadii hoose gudubeyso ilaa iyo mataqaanaa esophagus pharyngeal stage baa jira stage loo yaqaano ka waa involuntary ku yar muxuu voluntary ada maamuli kan laakiin involuntary adu ka madax banaay because of waad liqday markaad inta afka dhaafiso inta ay tahay voluntary bay waxay noqonaysaa involuntary iyo maskala si waxaan sheegnaa caawinaya waxa waxyaabo dhan ka contribute garoobaya lagu leeyahay oo caawina lagu leeyahay cuntada ka gudubto food kuwini ka gubta lagu leeyahay pharynx-ka to stomach-ka manay cuntadan caawinaysa lagu leeyahay pharynx-ku waxa control lagu leeyahay medulla and lower pons hadda waxaan soo sheegnay inay medulla ka masuulsan tahay mataqaanaa iswallowinka marka qaybaynka soo raacdo lower part of the bones qayb la dhayaduna soo kala maskaxda kamid ah bayadna marka raacaysa lagu leeyahay pharyngeal stage-ka esophageal stage baa jirta xilliga hunguriga cad iyadna soo kale waa involuntary phase
kaasina waa cuntada inay ka socoto lagu leeyahay, foodkina ka socoto lagu leeyahay, esophaguska tagtana stomachka tagto weeyaan. Markaa saddexdaa qaybood oo nu kala qaybinay deglutitionka ama swallowingka, laba ka mid waa involuntary esophaguska iyo pharyngeal stageka, halka uu mataqaanaa ka yahay mataqaanaa stageka loo yaqaano buccal ama oralka phase-kuna isagu voluntary ka yahay mid mataqaanaa xunaan. Markaa kan habkii waxyaaba markaad cunto oo kale macnaha ovule iyo bowelska iyo say isku affect garanayaan xilliyada stageka mataqaanaa pharyngeal phase-ka, stageka esophaguskuna mataqaanaa waa isagu markaa wuxuu noqonayaa stageka wuxuu noqonayaa waa involuntary, waa pharyngeal stageka weeyaan, waa swallowingka waa isagu waa mataqaanaa waa isagoo kale waa involuntary, kana isagoo kale waa involuntary, waa esophagus phase-kii cuntada soo dhawaaqaysa waa foodkii iyadoo mataqaanaa muscle-kana contraction. Hadda muscle-ku meesha cuntadii hore u socoto waxa ka dambaysa cuntada contraction bay samaysaa, cuntadii hore u socoto ka dargaysan kala meesha sii yaraysa ka weeraanaysa ka wala iska socon waqti weyn ugu socdo mid baan duliga isku diristaajina sax iyo waxyaabaha rasabtaradii waxyaaba ka muhiimsan baa isleeyahay gudana stageskaas. Pharyngeal stage swallowing xilliga pharyngeal stageka mataqaanaa laga soo bilaabayo hunguri qaybtan isku xidha hunguriga cad iyo afka ma isleegi doonaa way as a bolus food inter marka cunto soo soo gashay lagu leeyahay pharyngealka waxay isticmaal garanayaan storage receptorka cadaadiska ama receptorka cadaadinta storage macnaha inuu wixii cadaadismo dibadda receptorka wuxuu sababay lagu leeyahay inuu pharyngealka impulseski inuu transfer garoobo swallowing centerka, taasina ay bilaamato inay isbedelaan. Maxay isbedelaya inta baa isbedelaysa markaa cuntada markaad cunto afka saa gurido aad hore u soo dhaadhicisada afka dhaafso ee geesa qaybtii isku xidhisa pharyngealka ku tilmaamay isku xidhisa esophaguska maxay iyo isku xidhisa oralka baa waxay sameeysaa receptor waxa jira dareemo yar storage receptorkaas wuxuu muhiimsan yahay inuu impulse soo diro swallowing centerka ku soo sheegnay ma dhowlihi dibadana ay hoos socoto cuntadii dibadana maxay isbedelaya inta baa isbedelaysa soft palate-kii halkan ku soo sheegnay lingada xijiricsanaaye iyo ovule oo hilib dalqihii bulad waxay noqonayaan lagu leeyahay kor bulad awar kor baa u dalacmay lagu leeyahay and close waxa xidhmay lagu leeyahay posterior nares ama nasal opening qaybta sare mataqaanaa nasopharyngealka baa iyadu xidhmaysa markaad liqaysid u soo gudbinaysa maxay mataqaanaa esophaguska u gudbinaysa. Marka halka maxaa dhacaya in ovule inuu kor u dalacmo si cuntay meesha u dhaafto focal corku fasting together manaa qaybtani focal corka ama mataqaanaa dhuuntu markaa waxay noqonaysaa fasting together. Epiglottisku manaa waa kan mataqaanaa epiglottis xiriiraha jiro waa jir yaro u dhaxeeya hunguriga cad iyo hunguriga cas. Markaad cunto cunayso hunguriga cas buu daboolaya, markaad neefsanaysana hunguriga cas buu daboolaya. Marka epiglottiskaas wuxuu xidhayaa lagu leeyahay larynxka oo ah qaybtii hawada ah iyadu ayuu xidhayaa. Respiratory-gu xilliga in yar buu yara joogsanaya lagu leeyahay interruption ku dhacaya. Trachea noo soo kale way xidhmaysaa aan esophageal-ka furmaysa ana hunguriga cad waa xidhmaya ama hunguriga cad waa larynxka ka sii hooseeya esophaguska markaasoo kale trachea-diina iyo noo yar xidhmaysa lagu leeyahay esophaguskana uu furmaya oo kii cuntada waxaana control internal nerve saddexda nerve baa control trigeminal nerve cranial nerve 5a glossopharyngeal cranial nerve 9 vagus nerve cranial nerve 10 saddexda nerve baa badanaa mataqaanaa control oo nerveskan waxa la yiraahdaa cranial nerve la yiraahdo waa nerves ka yimaada maskaxda waliba ka yimaada maskaxda marka waxay ka yimaadaan central nervous ka yimaadaan badanaa waa cranial nerve la yiraahdaa waa 10 cranial nerve marka saddex ka mid ah saddexdan waxay controlaan pharyngeal stage waa trigeminal glossopharyngeal iyo vagus nerve way ka soconayaan dad gene esophageal phase-kii baan tagaynaa isaguna primary conduct isagoo wuxuu isku xidhaa esophaguskani esophageal stage swallowing wuxuu isku xidhaa cuntadii inuu ka imato from esophaguskii cuntadii ka imatay pharyngealkii inay tagto stomachka iyo mataqaanaa saacidaya esophaguskani mataqaanaa pharyngealkii markuu soo dhiibo esophaguskii wuxuu sii dhiibaya stomachka marka cuntadii ka imatay pharyngealka buu stomachka u gudbinayaa buu esophaguska u gudbinayaa stomachka laba system baa peristaltiska u muhiimsan lagu leeyahay primary iyo secondary peristaltis simply continuation of peristaltic valve began pharyngeal macnaha laba hab bay u soconaysaa mataqaanaa esophageal stage mataqaanaa stagekaas kooda primary wuxuu noqonayaa kaliya waa iskala gudbi khaasoon inay cuntadii ka socoto from pharyngealkii ay ka imato ay tagto esophaguskii dibadana meeshii loogu talagalay stomach ay tagto mid waa inta ka secondary wuxuu noqonayaa in addition to wave that initiated by bolus food descending esophageal wall waxaa jira lagu leeyahay waves baa jira lagu leeyahay hir waxbaa jira lagu leeyahay wax xog baa loo kala dirayaa lagu leeyahay socodsiina marka cuntadii iyada oo
distended weynaanaysa lagu macaan distended like adu way buurnaanaysaa kale ka dhigan tahay cuntadii say oo esophageal working uu yaraanaya markuu yaraado waxaa dhacaysa meelo meesha kasii dhimaysa yaraanaysaa cuntada xaggeeda dambe baa yaraanaysa markaas dhuunta sooraan kale dadinka tuumba afka tuumbada xisa u geliso oo hadba meeshaad wax ka gelisa halka dambeysa aad mataqaanaa yarayso wixii hore u soconaya means contraction baa galaya markaas ay kala weeyaan taasina waxa ugu wacan baa lagu leeyahay enteric nervous system ka loo yaqaano waan soo sheegnay subarachnoid by vagus nerve sidoo kale qeyb kalena bartly maanaa qeyb ka midana waxaa maamula vagus nerve kan iyo nefitan waa secondary waxyaabaha mataqaanaa effect gareeya pharyngeal stages walooyinka on respiratory xilliyada mataqaanaa respiration sidoo pharyngeal stageku xilliyada loo yaqaano pharyngeal stages walooyinka sidoo effect gareeyo respiratory way respiration kama neefsiga entire pharyngeal stage following usually occur less than 6 seconds maana xilligaad ku liqayso cuntadaas waxay noqonaysaa 6 seconds bay gaadhaysaa xilliyadaas oo kale interruption baa ku dhacay lagu leeyahay respiratory-ga for only function kaliya waxa shaqeynaya lagu leeyahay respiratory cycle respiratory cycle marka la leeyahay macnaha waa cycle-ka uu isu kala gudbinayo inay oxygen-tii isku bedesho aduu system dheer bay qaadanaysaa marka aduu si fudud waxaad ku qaadan karaysaa xilliyadaasi carbon dioxide-ku inay iskala bedelaan la doonayo mataqaanaa carbon dioxide lasoo turayo oxygen-tina jirka gasho la doonayo xilligaas waxaan baa ka dhacaya hoosta langaska qeybta hoose weli qeyb alveolar ah jira marka qeybtaas ku dhacaya gaasiga sii jaxiba kaloo cycle iyo xoos ka jiro oo dhaca marka isku sii mashquulumayne xilliyadaas oo kale 6 second buu joogsanaya mataqaanaa oo ku dhacaya macnaha iswaalooyinkan sidaa daraadeed interruption yar baa dhacaya respiratory-ga xilligaas kale waxaa dhacaya respiratory cycle-kii neefsiga dhacayo oxygen-tii maxay isbedelaya carbon dioxide-ka si fudud iswaalooyin centerku badanaa waxaa inhibitory respiratory center of medulla waxay xidhaysaa respiratory centerku specifically gaar ahaan waxay naga hirmad garanaysaa lagu leeyahay xilliga respiratory center of medulla center ku yaala medulla waa meel kamid ah brain soo sheegnay sidoo kale waxay leedahay center of respiratory marka centerka respiratory-ga bay naga xidhaysaa centerkii mataqaanaa iswaalooyinkana naga xidhaysaa center of respiratory-ga xilligaana mataqaanaa waxay dhacaysaa time-ka inuu respiratory-ga yar yaraado dhacaysa way halting respiration at any point in the cycle allow swallowing to proceed sax marka waxaa dhacaysa lagu leeyahay respiratory-ga inuu yar istaago dabeetana uu sii socoto swallowing process-ka wax loo yaqaan sii socoto yet even while person talking swallowing interruption respiratory such as short time is directed maanaa even haddii xataa qofku au person is talking hadduu qofku hadlaya lagu leeyahay swallowing-ku way xidhmaysaa lagu leeyahay qofku hadduu waa qofku sababta lagu leeyahay qofku yar saxdo lagu leeyahay adoo iminka cunto cunaya oo mataqaanaa respiratory-ga wixii mataqaanaa in la xidho la doonayo dad hadasho un respiratory qaybta furmaysa ama marka qaybta furmatay in cuntada gashaa laga yaabo ku saxta laga yaabo marka sidaa daraadeed baa mataqaanaa ay muhiim u tahay way iska dhaafaya lower esophageal baan geli doonaa qaybta esophagus-ka qaybtiisa hoose ama gastroesophageal sphincter baa jira u saacidaya mataqaanaa inay cuntadu dib ugu soo noqon esophagus-ka marka sphincter-ka badanaa wuxuu ku yaala qeybta hoose ee gastro iyo esophageal baa la dhahaa marka qeybta hoose wuxuu ku yaalaa stomach-ka gastro waa stomach-ka sax iyo esophagus marka qeybta esophagus hunguriga caadi uu ka galo hungurigan casi ee cuntada wada qeybta uu ka galo mataqaanaa caloosha waxaa jira wax yaroo sphincter ama wax yaroo mataqaanaa maxaan ku tilmaami karaa de adigu wax isku xidhaa yimaada wax like oo kale muscle baa xaggaa ah oo sphincter oo like soo taalan kana BB waxay leedahay afkeeda hore uu dhuuban yahay sax marka af yar oo dhuuban bay leedahay amana ay u saacideyso mataqaanaa qoolka yar u saaciday adu qool baro kana Soomaaliya qoolka yar wuxuu ku leeyahay hunguriga casi qaybta uga xidhmaya caloosha si ayna cunto ugu soo noqo meesha macnaha qayb yar adag weyn sphincter adag weyn marka function-kiisu wuxuu noqonayaa inay ku hortago inay cuntada soo noqoto iyo gastric contact-ga waxyaabo caloosha ka koobantay gastric waa caloosha inay ka wadnaay waxyaabo ka koobantay inay dib u soo noqdo xagee esophagus-ka gastroesophageal reflux baa jira ama wax loo yaqaan gastroesophageal reflux disease dhiib madan la sii raacay marka wax loo yaqaan chad baa loo yaqaan koox xanuun dhan oo la bartay waxa weakness noqonaya lagu leeyahay reflux bay cuntada noqonaysaa dib bay cuntada soo noqonaysaa marka weakness maxaa ku dhacay sphincter-kii ku dhacay marka waa injury of the gastric contact-ga aan sheegin hadda talo ku hortagaan lahayn mataqaanaa aan soo sheegnay sphincter-kii ayaa khalkhalaya dib bay cuntada soo noqonaysaa maxay ku soo noqonaysaa qaybta hoose lower esophageal
ayay kusoo noqonaysaa. Taasina waxay ku hogaaminaysaa lagu leeyahay ulcer mucosa inay macnaha ay meesha dhaawacmo ulcer meesha imaado dhaawac imaado kala dhacaysa. Sababtuna ay ugu wacan tahay dee contactigu caloosha marka gastric contact la leeyahay waxay kuma tahay hydrochloric acids. Hydrochloric acid haddii dib u soo noqotay kusoo noqotay esophagus-ka waxa laga yaabaa waa mataqaan waa acidic adag oo mataqaan aad wax yeelaysa dadka badanaa. Hydrochloric acid waxa yeelay in la googeysa laga yaabaa mataqaan esophagus-ka saadaradeed waxay soo saysaa xanuun loo yaqaano JAD. waxaa jira isagu soo kale clinical correlation marka laga hadlayo waa clinical correlation ma soo isgalayna mataqaanaa qaybtan aan sheegaynay achalasia jirta. Marka waa failure ku dhaca lower esophageal sphincter. Lower esophageal sphincter waa sphincter-kii darto lan soo sheegaynay hadduu failure ku dhaco hore uu xumaado ka waran by relaxing hada jiro iska furan yahay. De maxaa dhacaysa halka swallowing is inhibited. Ana xilliqitaankii uu xirmaysaa taas waxay soo lagu leeyahay inuu increase garoobo tone of lower esophageal sphincter due to the high sensitivity of gastrin weak esophageal bacillus. Macnaha waxa ku dhacaya waa infila meeshii waxa ku dhacaya lagu leeyahay waa failure ku dhacay lower esophageal mataqaanaa sphincter-ka sida daadeed waxa meeshii relaxing muscle-ka noqonaya. Muscle-ka ma hadduu relaxing noqdo hawaan sheegana meesha ara muscle-ka qowlka wax isku xidhiya muscle baa noo saamaxayo yareynayay. Marka muscle-ka hadduu meesha ka baxa maxaa dhacaya inay cuntay dib u soo noqotay gastric contact hydrochloric acid ka koobnaa. Marka waxa laga yaabaa in soo kale iyada lafteedu ay dhaawac gaarsiiso. Waa kan habkan sheegayno oo dhan waska normal ka weeyaan. Markaas sphincter-ka waxa qowlka yeelka kale marka meeshan caadi ahaantiisa waa la xiraa lower esophageal sphincter baa jira oo xiraa. Marka hadday meeshii bal furnaato ka hor blaasana u dhacaysa. Gastric contact inuu soo noqdo laga yaabaa ilaa soo gaaro mataqaanaa halkii sare soo gaaro. Waa jadhku sidoo dhaca weeyaan badan. Marka ilaa xagga soo gaaro marka soo gaarno gastric contact-ga ama waxyaabay liquids-ki iyo wax doonaha hydrochloric-ka haadaan. Marka waxa dhaawacaya esophagus-ka daraadid inflammation mu sameeyo esophagitis xas kale oo sameeyo inflammation xanuun far badan soo galay markaas haddana waxaas leerigi doonaa bal structure ahaan functional structure of the brain of the stomach to site high structure anatomical ahaan iyo function-keeda nigi doonaa chemical breakdown of process began and food is converted to chyme asa. Halkan caloosha la yiraahdo waxa ka bilaabma burburinta borotiinada ka bilaabma iyo sidoo kale cuntooyinka lagu bedelayo wax yar baa iyo mataqaanaa ya ka bilaabma waxa afar baa loo kala qaybiyaa badanaa anatomical ahaan marka laga hadlayo bari aan mataqaanaa caloosha waa cardiac reach qayb la fundus qayb la buri qayb la iyo pyloric qayb la sawir haduu jiro sawirkan dib ugu noqonaya si fiican isaga nagu sheegay qaybtaas waxa la yiraahdaa badanaa qaybta uu kaga xirmayo esophagus uu kaga xirmayo mataqaanaa stomach waxa la cardiac qayb la macnaha waxa la yiraahdaa waa qaybta ugu sareysa cardiac qayb la qaybtaasna badanaa waxa la yiraahdaa fundus la qaybta kor u taagan inta soo baxsan fundus la qaybta hore waxa ku tilmaamay cardiac qaybta ku xigtana waxa ku tilmaamay funduski qaybta dhexe waxa ku tilmaamay body baan ku tilmaamay qaybta dhan body baan ku tilmaamay qaybtana waxa ku tilmaamay qaybta ugu dambaysa waxa ku tilmaamay pyloric baan ku tilmaamay qaybta kale waxa la dhaajita antaramo iyadoo kamida mataqaanaa body kamida qayb kamida body-ga halkaas kale dhacaysa antaramto laakiin pyloric-da ugu dambaysa sax meesha loogu magacaabay H pylori bacteria la yiraahdo waxa ku dhacda badanaa ka socayna oo soo kala sheegnay cardiac region-ka waa qaybta ugu sareysa cardiac orifice-ka macnaha qayb sare kaga xirmayo orifice dad maqash waa meel furan oo meesha uu kaga xirmayo esophagus-ka yare sphincter-ka soo sheegnaa fundusna waa qaybta domshamina beneath-ka diaphragm-ka wixii qaybta diaphragm-ka badanaa hoos ugu soo foorsada fundus kan sheegnay body-ga waan sheegnay waa qaybta ugu weyn dhexda ku jirta oo badanaa wax lagu soo daro antrum baa iyada qaybta hoose pyloric-da jirta waa qaybta ugu hooseysa ka saabsan antrum-ta iyo terminal parts weeyaan pyloric continuation with duodenum macnaha pyloric-da waa qaybta ka siximta lagu leeyahay duodenum-ka marka halkaasna waxa ku haysan pyloric sphincter baa sida hadeer ma soo aragnay esophageal sphincter iyo xaggana pyloric sphincter ay leedahay function ahaan maxay qabataa mataqaanaa maxay qabataa calooshu waxay noo kaydisa lagu leeyahay quantity of food fara badan bay kaydin kartaa lagu leeyahay iyadoo dibitana u gudbinaysa duodenum-ka mataqaanaa mindhicirkeeda ugu soo gudbinaysa qayb kamid ah duodenum-ta la yiraahdo stomach-ku waxay hayn kartaa lagu leeyahay amount dhan wax doonahaade 1.5 liter oo food iyo mataqaanaa waxa doonto ahaatee 1.5 liter iyo wixii ka badan bay hayn kartaa mataqaanaa cuntada mixing food halka uu ka dhaco weeyaan mixing food kan soo sheegina hadda toole with gastric secretion soo waxayna lagu leeyahay from semi fluid chyme wax halka ay ka dhacda lagu leeyahay isku inay cunto isku dhex milanto waxay doonaan baha ahaadaan iyo gastric secretion ka soo sheegina hadda hydrochloric acid iyo pepsin iyo wixii dhammaan soo secretion garanaya halkaas oo ka dhacayo kind of kamid ah mataqaanaa degradation ka dhacaya lagu leeyahay
sidoo kale slow emptying waxay si fudud u nadiifisaa lagu leeyahay cuntada ka imaysa lagu leeyahay stomachka into the small intestine-kiisa. Cuntada intay noo haysa bay dhibaatana u gudbisaa small intestine-ka. Create suitable for proper digestive and absorption by small intestine. Macnaha waxay habkaas u fiican yahay lagu leeyahay, waxay u habaysaa lagu leeyahay si fiican ugu haysaa in la burburiyo laga soo absorption gareynka la soo qaadan karo by small intestine-ku intaas oo dhan shaqo qaban karo stomachka u fududeyso kolba yar buu kusoo siidaysaa lagu leeyahay functionkeeda loogu guto cuntadaasi. Secretory functions bay iyadu leedahay hadda stomachku waxay soo siidaysaa waxa loo yaqaan hydrochloric acid oo mataqaanaa acida, mucosin, pepsin, gastrin, intrinsic factor waxyaabahaas dhan bay soo secrete garaysaa. Waan arki doonaa kuley secretory function of GI markaynu gaarno baa si fiican ugu baran doonaa hydrochloric acid iyo mucoska iyo pepsinka iyo gastric iyo intrinsic factorka waxaas dhan waxay muhiim leeyihiin. Sterilization bay tahay lagu leeyahay macnaha cuntada haddaad cunto waxyaabahaas mataqaanaa bacteria waxyaabas ku hadlay hydrochloric acidkan waa acid daran ah baa markaa kaga takhalusaysa oo sterilizationkaasi leedahay. Digestion bay leedahay waxbay noo burisaa, absorption bay leedahay waxbay noo soo nuugtaa. Sidoo kale waxay fududeysaa lagu leeyahay defecationka in si fudud wax loo saari karo bay fududeysaayo cuntada fara badan ay haysa markaas hadda kuma sii deysa intestine kolbayn yar bay ku sii deysaa kolbayn inta la doonayo in cunto laga soo absorption gareyso ama inta doon in la saaro waxaas oo dhan bay inoo controleysa. Kuley waan dheereeyaan filaya. Thanks for watching. Aad baad mahadsantahay kuley. Kuley hadalkaas ku sii badanayna inta aan ku joojisaynaa casiraanta insha Allah la socda fiidiyoyada insha Allah hala daawado hala xiriir laga dhigo dadka aad la jeceshahay mataqaanaa inay ka faa'iideystaan insha Allah ha loo gudbiyo. Khayr baa isku rajeynaa insha Allah waa inoo cashirka dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.